صرت حاب بحيي أبي سويل الصحيبيين أنا وحارب إنا أبحي ماجد ماجد لكن مركع دلا إلا ويبو مقعيب وإلا ويبو الرير أصاد استي أو هذانا الرير كي أو عاد كلا تكتين معني واي أرجني ما كسي قاعدة ساعة إن هذا الكاج waxaan ka fahmay inta anigu jecelahay ka badan waxay jecel Muuse ها سفيعان absolutely والله موسورتا وحيالا بدنا كو إلوبين جرو حالد أدق إسoo martana way jirtay waqti oo wiilkayga uu xanuunsaday oo tacbaan uu noqday oo la ii soo sheegay inuu xanuunsan yahay qofka kaliya wuxuu ahaa i garab taagan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh meel kasta idinku joogto salaamantihiin soo dhawaada hadda channelka ku cusubtiin subscribe saara hadda hore noo joogteen aad iyo aad baa u mahadsantiin oo idinka mahad celinaa sida qurux badan joogteen noogu xidhantiin ifrax channelkii ku soo dhawow waa dhawahay waana ku faraxsanahay inaan barnaamijkan ka qayb qaato aad weyn somaha si fiican ifrax magacaaga saddexan magacaygu saddexan waa ifrax khalifa cali ifrax khalifa halkee ku dhalatay waxaan ku dhashtay muqdisho gaar ahaan madiino degmada madiino degmada mise madiino madiino ina degmada ingilata magalo ogi ay laftigeyga kuma dhaamo waligeyba arag hadaa xitaa ku sheegi la sanadka dhalatay ifrax waxaan dhashtay 1900 waxaan dhashtay 1997 ما شاء الله اوكي افرح معرض با tahay mise yaraan laba iga weyn marka dul mar tahay waa aamin oo kale aniga laba iga yaa imsa ka yar waxa iga yar saddex taasi waa barashada guud jeclaa in umadu ku barato sanadka dhalatay halka ku dhalatay iyo wali magacaaga saddexan waxaan ku weydiin doonaa su'aalo shaala dhowra inta jeceshay wad ka jawaabi intaanad jeclayna waa brevet bi ku yihiin ifrax noloshaada wixii kugu xumaa ee soo aragtay wallahi nolosheeda wixii iigu xumaa aan soo arko ha istiraada wallahi maanta maalin xun bay ahayd wallahi ima aysan soo marin maanta maalin aan dhaho maalin xun ee ii ahayd tusaale geeriyo kale xanuun oo kale qofaad aad uga naxdo kale qisad ku soo martay oo kale okay horta waxa iigu xanuun badneed markii wiilkayga uu xanuunsaday iyo markii awoobahey uu dhintay wiilkaaga Salmaan okay su'aalaha gadaal baan ka weydiin doonaa ifrax noloshaada guur ma soo martay aad shakhsiyada oo soo martay imsa sana lagu qabay 5 sano sanadkii guursatay waxaan guursaday 15 2015 waqtigaas oo aad u yareed ya fiican wiilkaaga imsa jira sanadkii lixada u sii dhamaanayo okay صح maxaad Malaysia ka soo doontay Malaysia waxa uu imaaday process ku socdaa mise ku hirgalay wallahi waa ku guul dareystay markaad ku guul dareysatay marka ma program kale u joogtaa system kale mise waa iska joogtaa macnaha dad waqti xaadirkan waa iska joogaa qof deganaaba ahayba waa iska degantahay ma laga yaabaa in dhinacan ka tagto in aan ka tago Malaysia ha mar walba ku fikiraa in aan ka tago halkeed jeclaan lahayd ifraax maanta hadii la oran lahaa ifraax ya wadan hala geeyo wadankeed jeclaan in lagu geeyo waxaan jeclaan lahaa in la geeyo muqdisho walaal waa batay kartaa laakiin inta waalidkii ma ogolano inaa gadaal u laabto waarno horo socod baa rabtaa inaad adduunka kala tagto okay ifraax hooyaday aabaa ku noolyiin alxamdulillah ku noolyiin wiilkaagu ma kula joogaa mise wadankii joogaa wadankii joogaa yu la joogaa walaashay macaan la joogaa iqra iqraarka ma ka salaameena iqra waqtiga hadii program ka daawanayso si fiican wiilkaaga Salmaan halka ma ka salaamaya imse xiriir baad noloshaada soo samaysay bacda guur wallahi 4 xiriir afarta xiriir ma jacay rasmi u ahaa mise wuxuu iska ahaa iska xiriirka caadiga ee la iska wada garanayo jacayl ciyaaltinimo loo ahaa because waa yara markaas maya markaad Malaysia timidaan jeedaan okay marka Malaysia imaado laba xiriir oo kaliya sameeyay laba xiriir baad samaysay maadaama aad tahay qof de nolosha khibrad ku leh you know
dadka isku wada mid ma ahan qofku markuu nolol soo sameeyo iyo qofka aan nolosha soo sameyn ee weli dee gabadha ah way kala khibrad badan yihiin si fiican ma isleedahay waaye aragnimo badan baa ku korodhay walaahi horta marka guur aad soo martid oo aad tahay qof guri hore u soo dhistay iyo markii aad gabar aad tahay oo noloshaan weli soo arkin way kala duwan tahay markii aad hore reer u soo dhistay oo haddana reerkii oo aad kala tagteen macnaheedu waaye aragnimo ka sii qaadaysaa wixii yaraantaadii markaas siita ama caruurnimadii aad ku degdegaysay waa ka fiirsanay in badan ba ka fiirsantaa okay jacayl hadda ma ku hayaa yes oo ku hayaa yuu ku hayaa Muuse ahey Muuse waxaan ognahay dhawaan intaan ogeyna aan jeclahay inaan u sheego inay dhawaan iskursan doonaan haddii Ilaahay qadaro insha Allah ma ku faraxsantahay guurkaas si fiican jacaylka maxaad ka aaminsantahay walaahi horta jacaylka waxyaalo badan ka aaminsanahay jacaylkana waa sidoo qofku u galo ama jacaylka sidoo adigu ku qabto صح jacaylkan wuxuu ku qurux badan yahay intuu gabadha dumarka ku badan lahaa inuu ninka ragga ku bato because markaas waxyaalo badan oo waxa jirto oo qofkaaneete oo keergareen badan aad ka helaysid laakiin markuu adigu kugu badan yahay oo ninka jacashaan uu ku yar yahay ma qurux badna kala tagiina badanaya markaas midkaana baranay haddana mid kale laakiin ninka markuu adigu jecel yahay muddo badan isla joogaysaan saas aaminsanaanay hadalkaaga waxaan ka fahmay inta anigu jecelahay ka badan waxay jecel Muuse si fiican absolutely ma caadiyan ba wax fiican gabadha in iyada la jeclaado taas ay nolosha ku dhismaysaa hadii kale waxay noqonaysaa nolosha ku qurux badan tahay hadii kale ila meeraysadii caadiga bay noqonaysaa Muuse waxyaalaha aad ku dooratay walaahi horta Muuse waxa ku doortay waa wiil iska dhalinyaro ah maanta dhalinyarada la mid oo qurbaha isla joogaan waa aragta xaaladaha badan ku sugan yihiin waa nin oo aqli badan waa nin aad iyo aad u degan waa nin ahlu salaad ah waa wiil wax bartay dabeecadiisa aad iyo aad u degan tahay marka ma sha Allah xiriir kaligiis iguma horeenin xiriir hore waa soo sameeyay laakiin dabeecadiisa aad ugu hela ma sha Allah dabeecadiisa aad ku qanciyay qof waqtiga salaada u soo kacay waaye waa qof badana hurdada waqtigiisa badana hurdada aysan qaadanin ما شاء الله وقف دبيعتي ساكيلا أنا ليه كرو إذا كان كرادة أزجور سنة هدي لا يدا هدي اللي قولنا لها موسى لبشي كبدل حد كبدل لا شخصية دي سيسا موسى لو شيء كبدل هدي اللي لها وحاك بدل لها أهم صنان تبدل إيوه وحاك لو كبدل لها كل النماذج وحج عليها إنه كل جيسة بدنا وعرك تعذقنا dhalinyarta inuu dhax galo malasha sheekaysanay mala baasha hadal badanna ma aha labadaas ka beddelaa saa qof bulsho ugu dhigo sad maadaama tahay qof bulshawiyada oo dadka dhax gala inuu sidaas oo kale noqdo laakiin doo la wada waalanaya wala qaal waa inuu qof deganaado qof degan yahay qofna waalan yahay qofna waxoogaa bulshada iyo waxaas hadii kale waxay noqonaysaa gurigii mukhbaarad caadi u noqonaya hadaway hadii lagu oran lahaa Muuse horta Muuse ma jira abaal ku soo galay adiga shakhsiyadaada intaad macnaade xiriirka wada leedihiin ma jira waxaanad ku iloobeen wallahi Muuse horta waxyaalo badan ku iloobeen jiro xaalad adag isoo martana way jirtay waqti uu wiilkayga uu xanuunsaday uu tacbaan uu noqday oo la ii soo sheegay inuu xanuunsan yahay qofka kaliya wuxuu ahaa garab taagan maadaama ay wiil ila dhashtay uu san wadankan ila joogin ama gabar ila dhalatay aysan wadankan aysan joogin qofka wuxuu ahaa garab taagnaa qofka wuxuu ahaa cunadeeda ka fikiraayay qofka wuxuu ahaa mar walba hurdadeeda waqtigaas soo kacay waqtiga aan seexanaayaba oo ogaa xaaladeeda ila socday haddii ay tahay wiilkayga xiriirinayay xitaa heer ay gaartay dhaqaatiirta uu la hadlo asoo waliba inta uu joogo oo dhaqaatiirta xagga ay joogan Muqdisho asagana inta uu joogo dhaqaatiirta uu la hadlo walaashay aad u la xiriiro uu dhaho wiilka iiga waran macnaheedu waxyaalo badan aan ku ilaawi karin maanta waa tan hadda aan cidna aan ka doorsanaynin qof ka dooranayo dunida ma jiro mala soran kala abaalkaad isaga aad macnaha maadaama abaal ku galay abaalka aad ugu celin lahayd inay tahay inaad marwadiisa noqoto si fiican waliba awlaad fara badan u dhalo waa qof istaahilaad leedahay in awlaad loo dhalo si fiican waxaan rabaa su'aalo dhowr inaan ku weydiiyo oo ku saabsan Salmaan maada u bixiyay magacaas mise abiiba u bixiyay
magacaas horta waxaa u bixiyey aabihiis wiilay saaxiibo yihiin anigu waxaa rabay inaan u bixiyo maajid maajid laakiin markaa dhalaa ilaaweybo magaciiba waa ilaawebo sax waa soo qaban waay magacii salmaan maxaa ku dhacay xanuunkiisa dad badan way isweydiinayaan kale jeclaan lahaa inay ogaadaan horta walaahi wiilkayga iska xanuunsaday ilmana waa taqaanaa ilmaha markay iska yaryar yihiin ilmana caafimaad iska qabaan markay weynaadaan xanuuno la kulmaan ilmana yaraantay ku xanuunsadaan wiilkayga horta wuxuu iska noqday qof iska xanuunsan iska noqday dhakhtar walbaa geeyey alxamdulilah waxaa liigu dhahee waxaa ugu shakisanahay inuu sonkor qabo kadibna dhaqaatiir badan markaa geeyey waaba laga waayay alxamdulilah hadda aad iyo aad u ladan yahay dugsigiisa edabuu ku aad maasha allah ma laga yaabaa inuu Malaysia aad keento haa si fiican oo kula noolaado aad iyo aad u jeclaa inaan keeno goorma because waxaan aad iga sii xiiseenayo inuu u imaado oo jecel inuu ila noolaado wiilkayga yaa Muuse waxa la oran karaa waa qof aad ku jecel maadaama adiga iyo ilmahaagaba aad u rabo maasha Allah horta isu kindaayo oo idin ducaynaa bulshada Soomaaliyeedna waxaan leenahay klibkan daawanay maasha Allah soo dhaareerkan oo soo duceeyay hadii la yiraahdo أنا لفتي جو أدم أقدر رسني السلمان أنا أعرفه ما فهمت بس إدتي وأنا هاي ما فهمت كذا كافولة يا وأقول هاي وأقول هاي هل كان يدك السلام عليك هل كان محك السلام لها هو يدي معان وأدونك أوجع لهاي يوحك لك السلام لها عبه معانا أدونك أوجع لها دو إداونا عيو نكستور ريرو سوشيال ميديا وصنهن halkan waxa kale oo ka salaami lahaa walaalahay macaan waliba walaashay iga yar iqra halkan aad iyo aad ugu salaamaya waxa kale oo ka salaamaya ruqiy cadeey yaraanteeni guri dambeeskeeni ya maxamed deeq ma fahmaysaa walaalahay ka salaamaya adduunka ugu jeclahay salmaan yare salmaan halkan ka salaamaya ya samarka ma sha Allah dhamaantood waxa leeyahay halkan aan iga wada salaamaya أنا قلت دمانتو وود السلام يا إن برنامجك أنت هسنكسو قبل يا إن شاء الله بإذن الله وح مكوار سينا ترى والله وح إيه هرسين وحنيه لها إن جنال كان سأوجدين لو ده بقولوا حيرة أو لمن نجارسي سأوجد بالدجنو ما دام آمين عبد القادر بلن قادر ترى بدن عنك مغلى سومها هذا وين إن وحين أقول لك كل إفرح باتري إن مقال كان مقال كحاجة أنت إن هذا بكم إنه واحد كتجاه سلاسيو السلام عليكم باي